adeer waxaan ka hadlayaa dadka lagu laayay beeralayda oo saaka guryahooda loogu tegay oo beesha biyamaal layday biyamaal nimanka la yidhahdo nabadgelyo waa laga waayey in dadku hadduu wada degan yahay nabad mataqaana lagu deganaado waa laga waayey marka waxaan cilaaminayaa in la iska dhiciyo dawlad laga dhicido dadka ka leexda waa la waayey annagu nabada goobaynaa biyamaal annaga qabiil walahaana oo dirsaana oo naga yaraan uhaysana inuu yahay biyamaal waa diideen nabad waa diideen xildhibaanaa wara niman hayareeso xamar joogaa wara niman nairobi joogaa wara marka biyamaal in la iska dhiciyo cilaan ahaa wada anugu gobolkaan deganahay naftanada iyo naftigana waa ka nabadgelya waana iska dhacaynaa ninkii kanixila iyo ninkii kulaylaayaba waa iska dhicinaynaa gawla inaan qalanaa noo banaan oo iska dhicino inaan laynaa noo banaan wax la celiyo waa la waayey nabad waa diideen biyamaal anaga inaan iska dhicino haddaan nahay beelaha habargidir kaargaday dilayaan nimanka bilay siiyey mataqaana shabaab weeye qofkii dhaga badan bixiyey oo 500 oo qori ka badan oo qaas furtay qaarna militariga ayuu ku wareejiyey qabiiliyay dadku laynayaan inaan iska dhicinaa laga go-an ninkii kanixila iyo ninkii ku raylaayaba madax dhiga wax maqlaan leeyahay ma garad ima cabdulaqi laakiin heerkan baasha maxaa gaarsiinaya adoo nooda inaad ma garanayno ilaa bilay dawladda maxamed sida bardhacday markay dadku dilayeen boqolka gulaa dhignay walaalayaal maxaa rabtiinaa niri daris baan nahay beelaha digil iyo hawiyo gobolka degmasiid baan nahay walaalaan nahay gobolka waa degannahay waa uga badan waa uxoog badan nahay hantida taalla iyo dhaqaalaha yaalaan leenahay hubkii military siyaasiyana loo wadaa siyaasiyin haddii la wada caawa waxaan u sheegayaa maanta madax dhiga loo maqlo waxaa ku tashan inaan iska dhicino annaga sidaas dawlad la arag kala dhex gasho dadka oo kala celida annaga waa iska dhacayna naftana iyo naftigana waa ka difaacayna biyamaal inaan kalano oo xariisa dhexoodana aan ku tisama anaga waana iska dhicinayna biyamaal anaga dadkee waa diideen nabad siyaasiyiinta wada ha maqasho xildhibaanada ha maqleen kuwa hayaha wata oo xamarkooda inay maqlaan weeye markaas nimankaad soo dirteen inaan iska dhicin aan ku tashanay imaam cabdulaqi hadalkaaga waxaa ku jira nimanka hay-adaha wada xildhibaano siyaasiyiin maxaad ula jeedaa arrimahaas magacyadooda sheegi doonaa caawa inaan sheego ma rabo maxamed carabo magacyadooda inaan sheegaa ku xigta warkaa war ka dambeeya magacyadooda ku sheegaa warseedaday ku jiraan nimanka dhaqaalaha bixiya injooya maxalliga iyo mataqaana nimanhayda wataa dhaqaalaha bixiya dad masaakiin oo beelay taasaak inta duuleen u tagay soo laayeen dawla laayay dadku dilayay oo isku dilayay dad shaarka dawladda uu jira isdilayay oo siyaasiyana hadda qabiilihiin oo raadiyay qabiilka dhaqanka qabiilka kamid ah nimanka waa diideen marka inaan iska dhicino nabadda mana lagu raadsiyaa qoragaaskiisa inaan iska dhicino xaalad ahayn uma jiro marka biyama anaga waa iska dhicinaynaa laakiin imaam cabdulaqi ma niman ragga hay-adaha madaxda ka qaarkood xildhibaano iyo rag siyaasiyiin maa ku lug leh dagaalka gobolka shabeellada dadkaasaa kullu dagaalka dadka shacabka ma ahan dagaal siyaasiya waaye dadka gobolka laga soo barasiyo laga rabay qabaan mana suuragelayso marka ciddii waxaa in la sugaan rabnaa ciddii laga qabi doono in la sugaan rabnaa gobolka waana ka dhacayna biyamada anagu wax kala xaliya la waayey mar haddii aqligu tali diiday mar hadday nabad diideen mar hadday waraabtinimo iyo reerkooda dawla deganimada loo daayay hadday diideen waxaan ku kasbanay inaan biyamaal iska dhicino aan ku kasbanay anaga waan ku kasbanaa iyagaan ugu kasbay marka biyamaal iyo anaga halaas ciddi gobolka warta waa iska dhicinayna mar haddii nabad laga waayey oo dacad shacaboo nimanka laa dukado beerahooda inta kuway xabadna naftigeen wax anaga laga tuuraba maaha wax anaga nala ku arki jiraa shaqayii jira umadiina shacbi ku tagnaan lahayn anaga laakiin nabadeena hormuudu nahay dirisayntaa hormuudu nahay walaaltinimada hormuudu nahay dawlad in la raadiyo dawlad laga dambeeyo alla hoos dawlad la waxsadaan hormuudu nahayn waa la waayey mana ogolayo waa diideen midkii shacabka dawladda loo geliyo xabaduu bilaaba oo shacabku bilaaba qabiilihii uu dadku usirinaya oo iyaga aho marka annaga hadee ilaahay dad waxuu naga dhigay mataqaana wixii dhibaa garan kara waxaan garanay biyamaal inaan gacantada iska dhicina inay danteed kalifanayo waana iska dhicinaynaa laakiin deegaanka lamber 6 lagu yaal meesha dadka shacabka maanta lagu jiro lamber 6 kaaga maana meel la yiraahdo beertoodii ugu tageen meel kali caafimaad ugu tageen neefkiina dawladii ka fadhiyaan haddii ilaahay idmana jawaabay helayaa waxaa la guri ninkii garaacaho jawaabo helaa laakiin maxaa dadka shacabka loo diray imaam cabdulaqi waxaa loo diray waxaa loo ku sheegay waxaa loo diray qabiilka ay yihiin iyo gobolka laga rabo waa dadkii la dilay kuwii dadka gubayo weeye ayaantaanba way wareen nin 100 sano jiray inta dileen gubeen iyo wiilkiisii laba nin oo kale inta gubeen motoradii waxay gubeen intuu waxaa ay raadkooda ku cadaaday marka arrintaas way process socday waa sugayday waa cadaaday wasaaradda wasiirka arrimaha gudaha ma u gudbisay imaam cabdulaqi waa wasiirka xakama qaban kariya hadee wasiirka wax ka qaban wasiirku wax ka qabanayo waa ogyahay wasiirku hadduu wax ka qabanayo ogyahay biyamaal iyo annaga